Bismillahirrahmanirrahiim. Halkani waa kanaalka Igloon Kidme. Maantay waxaynu ka hadlaynaa barnaamij gaar ah oo ku saabsan Soomaaliya iyo dagaalkii labaad. markuu qarxay dagaalkii labaad ee dunida labadii gumayste Talyaaniga iyo Ingiriiska ee kala haystay koonfurta iyo waqooyiga Soomaaliya waxaa dhexmaray dagaalo culus oo ku wajahana sidii qolo walba guud ahaan geeska Afrika u qabsan lahayd. duulaankii hore oo dhacay 1936 waxaa lagu jibiyay gumaysigii Ingiriiska oo laga qabsaday dhammaan gobollada waqooyi. guusha Talyaaniga waxaa u suurtageliyay ciidamadii iyo hubkii tirada badnaa ee ay ku qabsadeen dalka Itoobiya sanadkii 1935 ilaa 1937 iyagoo iska tirtiraya fadeexada iyo jabka Talyaaniga ka soo gaaray dagaalkii Adwa ee 1896 dhacay. sida la sheego dagaalkaasi wuxuu ka dhashay muran ku saabsan qodobada heshiiska la oran jiray Usaid Treaty ee Talyaaniga iyo boqormane korow dhaxmaray. waxaa sidoo kale guushii Talyaaniga gobollada waqooyi u suurtageliyay ciidamadii loo yaqaan Bando iyo Duubcad ee laga qoray wadamadii Talyaaniga gumaysanayay ee kala Liibiya, Soomaaliya iyo Eritrea. Talyaaniga oo libinku geeraarkii baalgaray suurtay ayaa Ingiriiska 1941 weerar rogaal celis ah badda iyo berigaba ugu soo qaaday ciidamadii Talyaaniga. duulaankaas Ingiriisku wuxuu u suurtageliyay inuu gacanta ku dhigo wadamadii Talyaaniga gumaysan jiray ee kala Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea. Ingiriiska iyo Talyaaniga oo ka kala tirsanaa labadii hoog ee dagaalkii labaad ka dhex oognaa lana kala oran jiray xulafo Mareykanka, Ruushka, Ingiriiska iyo Faransiiska iyo kuwan Jarmalka, Talyaaniga iyo Jabbaan ayaa dagaalkii oo socda 1943 isbedel lama filaan ah ku yimid jaangooyadii siyaasadda Talyaaniga, taas oo ka dhalatay kadib markii la dilay Benito Mussolini oo ahaa ra'iisul wasaarihii mayalka ee nidaamka fajistada. dilkii Mussolini kadib waxaa Talyaaniga ciidamadii huwanta u ogolaaday inay isticmaalaan garoomada diyaaradaha, dekedaha, hawada iyo goob kasta oo waxtar u leh. weerarkii ku wajahnaa Naasigii Jarmalka ee uu madaxda ka ahaa keligii taliyihii Adolf Hitler ugu dambeystii guusha dagaalka waxay raacday xulafadii Mareykanku hormuudka u ahaa. haddaba markuu dhamaaday dagaalkii labaad ee dunida sanadkii 1945 ayaa muddadii u dhaxaysay 25 Maajo iyo 25 Juunyo 1945 magaalo San Francisco lagu dhisay GQM. maadaama GQM aysan lahayn wax awood sharci ah oo la xiriira wadamadii laga qabsaday kuwantii la jibiyay dalalkii ay hore u gumaysan jireen oo haatan lagu magacaabaya mustacmaraadka la qabsaday, ayaa waxaa la sii saadaaliyay in aysan 40 quwadood ee dagaalka labaad ku adkaaday ku heshin doonin mustaqbalka qaabka loo maamuli doono wadamadaas. si had loogu helo wadamadii laga kiciyay huwanta ahdiga loo dejiyay GQM waxaa lagu dheehay in la dhisi doono golo mahmiyadeed. golahaas oo la wareegi doona maamulka dhulalkii la kala qabsaday. wadamadii lagu qeexay ahdiga GQM ee golaha mahmiyadda u talin doona waxa ay kala ahaayeen wadamadii lagu hayay awood sharci iyo wadamadii laga qabsaday dowladihii gumaysan jiray dagaalkii labaad iyo wadamadii dowladihii hore u gumaysan jiray ay si raali ah ugu wareejiyeen golaha mahmiyadda. waxaan meeshaasi ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii oo aan ugu hadlaynay Soomaaliya iyo dagaalkii labaad ee dunida.